waa gartay maxaa loola jeedaa Israa'iil dhul bay ku dhuminaysaa arrintan dabcan Netanyahu wuxuu ku adkeysanayay inay qorsheynayaan boqolkiiba 70 inay qabsadaan Mareyka Gaza laakiin heshiiskan hadda lagu gaaray Qaahira toddobaadkii hore wuxuu dhigayaa ciidanka Israa'iil inay ka baxaan Mareyka Gaza dib u dhis lagu sameeyo ciidamo caalami ah la geeyo 5,000 oo ciidamo Falastiiniin ah oo booliis lagu wareejiyay amniga Xamaasna waxay ku xirtay shuruudda sida uu sheegay Qazi Xamaad Israa'iil meesha inay ka baxdo marka hore horta waxaa muuqata sheekadan hadda ka soo baxaysa Mareyka Gaza sida Mark Prefel oo hadalku dhigayo oo ah nin la taliya amniga qaranka ku xigeen u ahaan jiray wadanka Mareykanka in wadiiqadan cusub ama qorshahan cusub ee Gaza lagu baaqayo in Xamaas hubka laga dhigo Israa'iilna ay ka gurto Mareyka Gaza ay tahay arrin cusub oo cadaadis lagu saarayo Israa'iil waa sida hadalku dhigayo Israa'iil waa ku wanaagsan tahay buu yiri inay hadasho laakiin caqabadaha fooda ku haya wax badan kama dhigi karto oo la xiriira xagga amniga xalna ma hayso waxaa muuqata in hadda xal rasmi ah la gaaray oo muddada dheer sida xal arrintan loo xalin lahaa nabadna lagu keeni lahaa inaan wax caqliga ka haysan wadadan cusub ayaa Xamaas waxa uu siinayaa waqtigii kama dambeystay ay dalbanayeen in Israa'iil ay ciidankeeda kala baxdo meesha isla markaasna cadaadis diblomaasiyadeed oo Mareykanka saaro iyo mid military si ay waajibaad ka saaraan Israa'iil u gudato Israa'iil saaxiibo ma laha caalamka oo dhanna go'doon ayay ka tahay Mareykankana hadda waxaad moodaa in uu ka soo horjeestay sida hadalka loo dhigayo waa gartay waa yahay haddii hadda maxamed arrintu halkaasi marayso oo ay dhacdo Iiraan shuruudaheeda in la aqbalo ma dhici kartaa inay ku soo darto Gaza Israa'iil inay iskaga baxdo gebi ahaanba oo xabad joojin iyo hubka dhigis aan la gelinba oo shuruudaha sida ay ugu dartay qodobka koowaad qodobadii 14 ka midka ahaa inay ku soo darsato Gaza ma laga yaabaa waxyaabo ka waaweyn ayaa jira Gaza hadda Gaza naf ayuu ka dhiganayaa Mareykanka iyo Israa'iil ay ka dhiganayaan waxyaabaha soo socda waxaa ka mid ah Iiraan iyo Ciraaq in ay si toos ah wada shaqeeyaan oo awood weyn ay soo baxdo Xuutiyiintana waad ogtahay hawsha ay bilaabeen saaxiibadii Mareykanka ee gacankana Iiraan waxay wadaa olole ay wada hadal kula fulayso oo ay leedahay Mareykanka gobolkan ma joogayo gobolkan waa ka tirsantihiin muddo dheerna waa ka tirsanaadeen sida u shaqeyn jirteen iyo qaabka u fikir jirteen waa dhamaaday cadawgii la sheegi jiray Israa'iil ahaa cadawgii la sheegi jiray Iiraan ahaa Mareykanku idinku xoojin jiray Mareykankii waa guul daraystay waana dabashaday mustaqbalka hadda in aniga heshiis leela galo Iiraan ayuu ku xiran yahay wadamada gacanka Oman heshiis gaar ayay la galaysaa wadamada gacanka oo kalena heshiisyo gaar ayay la galaysaa inta marka la yiraahdo oo arrimaha waaweyn ah oo isbedelka sameynaya waxa ku haray oo ayadana cabsi weyn laga qabaa Iiraan Ciraaq dhexdeeda ayaa waxa ka socda xukuumadii uu hogaamiyaha ka ahaa ra'iisul wasaarihii la kulmay madaxweyne Trump ayaa culays badan ku yimid oo waxaad moodaa in jagadiisa la isku haysto oo meelaha qaar ay ku tilmaamayaan in isbedel weyn uu wadanka Ciraaq ka imaanayo isbedelkaasi waxaa laga yaabaa inuu saameyn ku yeesho Suuriya oo uu xoojiyo gacanta mucaaradka Suuriya ka soo horjeeda wadanka Urdun ayada laftirkeeda saameyn weyn ayay dhaqdhaqaaqaasi ku yeelanaya Mareykanka awoodii uu gobolka bariga dhexe ku lahaa waxaad moodaa inay sii nuxuusayso heshiiskan hadda lagu gaaray Masar lagu gaaray waa madax cid ka cisasho weeye cid u naxariisanaysa sida khabiirada hadalku dhigayaan Xamaas iyo Falastiiniyiinta ma jirto daanta galbeed ayuu ka wadaa isbalaarin Israa'iil ka wadaa waxaana muuqata hadda in xaalku uu soo xumaanayo isbedeshay qaababkii loo maareynayay marinka Hormuuz iyo Mareykanka wixii uu ku taamayay iyo wixii uu waday si cadna loo sheegayo inuuna Mareykanku awood buuxda ku lahayn deegaankaasi
iiraanna ay hadda tilaabo dheerayn samaynayso oo ay rabto maraykanka markana inay muquuniso. waxyaabaha kale oo ayadana ayaan darro ku noqotay maraykanka waxa weeye saaxiibadii uu filayey in ay wax la jiijiidaan ee Yurub oo shirarkii la filayey dhinacyo badan ayaa wax ka soo noqdeen. wejiga xiga ee siyaasad juqraafiyaadka caalamka isbedel weyn ayaa ku socda ayay khabiiradu isku raacsan yihiin, weliba kuwa la fugura arrimaha maraykanka. waxaana si buuxda loo leeyahay maraykanka iyo Israa'iil xiriirkii ka dhexeyn jiray ee soo jireenka ahaa waqtigiisii wuu soo dhammaanayaa. dhalinyaradii oo dhan oo codayn doonta raalli kama aha maraykanku inuu kharash iyo hub iyo siiyo Israa'iil oo loo arko in ay tahay sida hadalka loo dhigay dowlad faraha laga qaada. maxamed waa mahadsan tahay. intaana ka bixin daawadayaal aynu eegno war dhanka Colombia ka soo baxaya. ugu yaraan 11 qof ayaa la sheegayaa inay ku dhaawacmeen kadib markii qarax weyn oo baabuur oo ka dhacay magaalo ku taal xadka waddankaasi oo la wadaago Venezuela. tani waxay ku soo aadaysaa 6 maalmood ka hor caleema saarka madaxweyne Isbirayalla oo isagu ah dhanka midigta kana guuleystay madaxweynihii hore Gustavo Petro oo dhanka bidix ah isla markaasna aad u taageeri jiray dadka Falastiiniyiinta. hogaamiyahan cusub wuxuu aad u taageeraa dhanka Israa'iil. wixii wara ee arrimahan ay ku soo kordhay barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii Alla idmo. inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa caawa barnaamijka. daawada si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo